marka hore Soomaaliya Allah mahadle marka xigtana waxaan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu maanta ay tahay cashuura bisha islaamka 10kii cashuura maanta waxaan rabnaa horta inaan mid u bildaamino waxay tahay aan u sheegno maanta waa maalintii la rogay ummadda awoodaha Ilaahay u sheegata waa maalintii la rogay Soomaalidana waxaan rabnaa bal inaan wax yar u bildaamino meelaha laga haystay dhibtu kaga imanayso ilaa 60kii markii la yiraahdo calanka la qaatay waxa Soomaali loo qoraa dastuur wax la yiraahdo haddaba dastuurku muxuu yahay taasaa muhiim in la fahmo dastuurka intaanu ognahay ee dadka cilmiga iyo aqliga u saaxiibka leeyihiin og yihiin dastuurka Ilaahay uu inoo qoray nabigeeni maxamed alayhi salaatu wasalaam baa lagu soo waxyooday oo kitaab quraan ah asxaabtii baa inoo qortay xadiisyo marka dastuurka la sheegaa waa ka ninka maanta ilaaha dastuur baan qorayo nin waalan baanu ku haysanaa because koonkan aduu marihid Allah iskale waxaan ku sheegayaa ninka dastuurka ku soo dhiibay ilaa 1960gii annaga la joogno dastuurkiisa markaanu eegnay isagaaba kii diinta islaamka ee saxda ah ku salaysan sidoo ku kala fadhiyo wax ku kala cunayo iyo sidoo cadaaladda iskugu yeelayo adigana mid isagu soo sameeyay iyo ku keenay maalin kasta dadka ku dhaq ku yiraaha on cadeymaheeda hayno diiwaanad aamintay sidan aan u malayno waanad aaminteen hadduu laptop sameeyo buug buu soo raaciyaa waxba kama bedeli kartid oo inaad laptop buugga eegataa ilaa aad shidasho hadduu mobile ku keeno buug buu soo raaciyaa waa inaad ilaa buugga eegata mooyaane aad sida loo shiday aanad garanayn marka haddaba waxaan la hadlayaa nimanka dastuurka yidhaaha dastuur baan qornaa nimanka dastuurka 1960gii maantana uu joogo federaal baa laga dhigayaa qabiil kastaana meeshiisii uu dastuur ku samaystay ha u darnaada ka Somaliland ma taqaanaa maanta haddaad eegta disgusting-ka ah ee aan la qaadan karayn aan meel alliya meel laga qaataba lahayn warkaankan allihii samaystay dastuur wuu u qortay gaalka ka hortiina maanu maqal wax dastuur la yiraahdo annagu gaalka ka hortii wax xeer la yiraahdaan lahayn xeer oo lagu kala baxo ummadaas oo isku ogtahay marka haddaba maanta waxaan ka rabaa ummadda Soomaaliyeed maanta ay 10kii cashuura tahay la laalay kuwa awoodaha sheegta inay dastuurka iska laalaan dastuurka ay u qorayaan nimanka Soomaaliyeed ay leeyihiin professoraan nahay annaga wax u naqaana kii Ilaahay aan rabin war niman waalwaalan ku qora Soomaaliyeed nimanka dastuurka Ilaahay faraha la galaya waa niman waalwaalan waxna ha ka qorina dastuur dambe oo federaal ayaan laynila iman wax yaro qabiil oo Soomaaliland ayaan laynila iman sida Soomaaliyeed uga soo horjeesta dad ka soo horjeesan weydaana
sidii fircoon bay noqon doontaa inaad fircoon daba gashaa reerkii fircoon daba galay umaad noqonaysaa waan salaamaya Soomaaliya wixii wanaagsan waa la isgaarsiiye ummadda Soomaaliyeed gaarsiiye wixii dastuur yiraahdaan nin waalan ku qora hadda laga bilaabo maanta waana yahay nin waalan wixii arrimaha Ilaahay faraha la galaa waa nin waalan Soomaaliya waan salaamaya meel kastoo joogtaan assalaamu calaykum